cabsi xoogan ayaa soo wajahday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle xilli biyaha webiga Shabeelle uu keenay biyo fara badan isla markaana laga cabsi qabo in karkarada uu jabsado walow qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga magaalada Jowhar ay biyaha webiga Shabeelle ay ku fataheen cabsina ay soo wajahday xilligan dadka goobaha ugu daran ee fatahaada biyaha webiga Shabeelle ay ka jirto haddaba wasaarada gargaarka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo saaray digniin xoogan oo ku wajahan goobaha laga cabsi qabo in webiga Shabeelle uu ku fataho qatarta ay la kulmi karaan beeralayda iyo dadka ku dhaqan hareeraha jiinka webiga Shabeelle wariyahayaga Ibraahim Cali Nuur oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa warbixintan noo soo diray xilli webiga Shabeelle uu wado biyo aad u fara badan meelaha qaarna uu ka geystay fatahaado ayaa wasaarada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay digniino u dirtay bulshada ku nool deegaanada Hirshabelle dadka waxaa loogu baaqay inay ka feejignaadaan haddii webiga uu fataho qataraha ka imaan kara si ay u yaraato saameynta khasaaraha fatahaada wasiirka wasaarada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdimahad Qorgaab oo la hadlay TV Universal ayaa sheegay in baqdin badan ka qabaan biyaha faraha badan ee uu wado webiga Shabeelle xilligii dayrta dhamaadkii sanadkii 2019 Hirshabelle waxa ka dhacay fatahaad midii ugu weyneed ee ebed ka dhacda dalka taasoo maashaysay hantidii iyo kaabayaashii dhaqaale ee bulshada reer Hirshabelle taasoo ay sababtay khasaaro naf iyo maalba leh haddaba sanadkan xilliga guga waxaa la saadaalinayaa in ay di'i doonaan roobab cabirkooda lagu qiyaasay in ay ka badnaan doonaan roobabkii horay uga di'i jiray dalka saadaasha fatahaada ee May 2020 saadaasha fatahaada waxay had iyo jeer ku xiran tahay saadaasha laga sameeyo roobabka la filayo in ay da'aan iyo meelaha la saadaalinayo inay maxaa la yiraahdaa ka da'aan haddaba waxa ay saadaashu tibaaxaysaa in bisha May ee sanadka 2020 ay suuragal tahay in ay dhacdo fatahaad la mid ah tii dhacday bishan oo kale sanadkii 2018 sidaas daraadeed waxaan ka digaynaa xaalad bani aadanimo oo la mid ah tii sanadkii 2019 inay dhacdo sidaas daraadeed waxaan bulshada reer Hirshabelle tala bixin iyo tusaalooyin iyo digniino hore ku siinaynaa talooyin aad iyo aad u fara badan oo wax ku ool ah si looga digtoonaado ama ay u yaraato khasaaraha la filayo in ay fatahaaduhu saameyn weyn ay ku yeelato reer Hirshabelle guud ahaan waxaan ku tala bixinaynaa in bulshooyinka aadka u nugul ee ku nool meelaha ay ka dhici karto fatahaada ay goor hore si iskood ah ugu guuraan meelaha dhulkooda uu sareeyo si naftooda iyo maalkooduba uu u badbaado sanad waliba webiga Shabeelle markuu biyo badan keeno wuxuu fatahaado ka geystaa qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle fatahaadaas oo ay ka dhashaan qasaarooyin kala duwan Ibraahim Cali Nuur TV Universal Jowhar wararka ka imaanaya degmada Burtinle oo ka tirsan gobolka